بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملك استاذ جوجتان بكسر دوالة جنرال كان عقد يدنيدا CID برو تي في أو ورك ورئيسية وحن أسوي جوجي وها على بعض جلسة عطان ورئيسية برنامج يورر أن نسود نأدينكو عددك داوضة يدك دقيس أنت وملك استاذ جوجتان maalintu waxa ay tahay maalintii koobaad ee bisha Agoosto oo bisha 2026 wararka caalamka iyo dunida iyo qodobada iminka ugu waaweyn qoliyaha Xuutiyiinta ee Yemen jooga ayaa beeniyay hadallo ay warbaahintu sheegtay oo ah inay qorsheynayaan inay lacag ka dhigaan maraakiibta maraysa dhinaca badda cas iyo waliba Bawalmandab iyo waliba marka la fiiriyo gacanka cadmeed afayeen oo hadlay Xuutiyiinta oo Yemen jooga ayaa waxa uu sheegay arrinkaas waxba inaanay ka jirinin laakiin ay maraakiibtu sida u mari jireen caadiyan ay u mari karaan marinadaasi kala duwan ee biyaha afayeenku waxa uu sheegay haddii ay jiraan qolyo kale oo iyagu doonaya inay dadka lacag ka qaataan iyaga ay gaar u tahay laakiin anagu kuma jirno qorshahaasi iyo barnaamijkaasi hadalladaas la saddex maraya waa waxyaabaha keenaya tuhun kadib markii wafdi ka socday Xuutiyiintu maalmo ka hor ay tageen magaalada Tehran ee dalka Iran oo la sheegay Iiraaniyiinta maamulayaashooda inay Xuutiyiinta ku soo qaadeen inay suurtagal tahay inay ku haboon tahay inay lacag ka qaadaan maraakiibta maraysa dhinaca badda cas sida Iran bay u sheegtay gacanka Hormuz inay maraakiibta lacag ay markaasi duldhigi doonto laakiinse ilaa haatan Xuutiyiintu way beeninayaan 24 saac ugu dambeeyay hadalkaasi waxaana ay sheegeen maraakiibta inay dhulkaasi si nabdoon ay ku mari karaan in arrimahaasi tuunka u yimaado waa arrinka ku saabsan iyadoo toddobaad ka hor ay Xuutiyiintu u sheegeen boqortooyada Saudi Arabia inaanay u ogolaan doonin maraakiibtoodu inay baxaan amaba ay maraan dhinaca biyaha taasina ay keenteen weerarada lagu qaaday maraakiibta Sacuudiguna oo weeraray Xuutiyiintuna markale ay weerareen magaalooyin dhowr oo dhinaca shidaalka ee boqortooyada Saudi Arabia marinka Red Sea lagu magacaabo ama badda cas waa marin aad u muhiim ah marka la fiiriyo maxaa yeelay badda cas ka sakow dhinaca Bawalmandab iyo dhinaca gacanka cadmeed maraakiibta ka timaada ama ku socota Asia ee soo aadaysa dhinaca Yurub iyo gacanka marinkoodii weeyaan haddii ay dhacdo carqaladeena inay timaado culayskii hore u jiray ee dhinaca Hormuz ayaa sii siyaadaya taasoo markaa keeni kartaba kala go dhinaca maraakiibta ganacsiga iyo maraakiibta kale ee marta biyaha laakiin iminka Xuutiyiintu waxay sheegeen haba yaraatee xaggooda wax lacaga inaanay jirin oo maraakiibta laga qaadi doono laakiin aan la ogeyn waxa markaasi soo socda marka la fiiriyo gacankaasi isagaahi waa gacan muhiim ah ee dhinaca Red Sea iyo waliba dhinaca gacanka cadmeed iyo Bawalmandab iyadoo tusaale loo soo qaadan karo gacanka kale ee lagu magacaabo Malacca oo isagu ah mid u dhaxeeya dhinaca Indonesia dhinaca Singapore iyo dhinaca Malaysia lagama qaado lacago qasaba oo la yiri inta bixiya laakiin maraakiibta ayaa isxilqaantay iyo maamulayaasha shirkadaha oo iyagu lacago dhiiba la doonayo marinadaas waxyaabaha ay u baahan yihiin oo dayactirka ah in markaasi lagu sameeyo wixii warar ah ee ka jira guud ahaanba dhinaca Red Sea wararka iyaga kale CID Pro TV biidnillaahi kariim wararka ka imanaya dalka Venezuela waxay shaaca ka qaadeen in uu jiro wada hadal u dhaxeeya mucaaradka iyo dadka muxaafidiinta ee xukunka iminka haya wada hadalladaas oo ay qaban qaabisay dawladda Mareykanku wararku waxay sheegayaan in ujeedku uu yahay in la sameeyo doorasho dhinaca dimuqraadiyadda ah taasoo ka dambeysay markii dib u dhacay ee Mareykanku ay ku duuleen habeen madow magaalada Caracas xaruntii madaxtooyada bishii January oo ay soo qabteen madaxweyne Nicolas Maduro iyo afadiisa oo iminka maxkamadeyn ku sugaya magaalada New York wixii markaa ka dambeeyay waxaa sii haysay jagada haweeneydii madaxweyne ku-xigeenka ahayd Delcy Rodriguez taas oo iyadu gacan saar leh marka la fiiriyo dawladda Mareykanka Amerikaanku waxay bilaabeen markiiba inay ka dhaadhiciyaan in ganacsiga loo furo shirkadaha dhinaca shidaalka ee Mareykanka iyo kuwa kale taas oo horey uga xandhibneed intii uu Nicolas Maduro iyo raggii ka horeeyay ay joogeen dalka Venezuela wada hadalka iminka la doonayo mucaaradka iyo maxaafidka wadanka Venezuela ayaa waxaa la sheegay inaanay mucaaradka ku jirin dad magac leh oo ay ahayd inay ku jiraan waxaa tusaale loo soo qaatay haweeneyda ku guuleysatay Nobel Peace Prize-ka ee iyada lagu magacaabo Maria Corina Machado oo la sheegay inaanay liiska ku jirin iyo wada hadalka taasoo loo arki karayo inay muhiim u ahayd mucaarad iyo maxaafid baad isu imanayaan wadankaasi Venezuela laakiinse mucaaradka ka imanayay magaalada Caracas ee xarunta Venezuela waxaa hogaaminaysay haweeney dhinaca sharci yaqaanka ah ee iyadu muddo u joogtay dibad joog dhinaca dalka Spain laakiin bishii June ku laabatay magaalada Caracas iyo dalkaasi Venezuela oo lagu magacaabo Dinara Biguera
haweeneydaasi waxaa la sheegay in iyada lafteedu ay ku siyaadsan tahay gacan saarna ay leeyihiin dhinaca Ameerikaanka taasoo Ameerikaanku u arko haweeneydaasi inay tahay shakhsiga kaliya ee ugu dambeeyay 2015 marka la fiiriyo qaab dimuqraadiya inay markaa ku soo bixi kareysay wadahadalkan ayaa waxaa isaguna hadlay ninka la dhashay haweeneyda madaxweyne ku-xigeenka ahayd iminkana sii haysa jagada Delcy Rodriguez ninkaas oo lagu magacaabo Jorge Rodriguez oo ah ninka isagoo afhayeenka ka aqalka golaha shacabka ee wadanka Venezuela oo yiri wadahadalkan mucaaradkii maxaafidka ee Ameerikaanka uu qaban qaabinayo waxaan uga faa'iideysanaynaa fursad ah inaynu soo gudbino codsiga Venezuela in laga qaado culaysyo kala duwan iyo waliba marka la fiiriyo xanibaad laga xanibay iyo cunaqabateyn hanti badan oo ay markaa iska lahayd Venezuela lama oga sida wadahadalkani ku dhamaan karo mar haddii dad badan oo xijmi leh oo magac leh ay yihiin kuwa maqan laakiin loo maleeyo mar haddii Ameerikaanku qaban qaabiyay in iyaga laftooda ay quldareynayaan dadkii isu keenayaan inay ahaanayaan dad iyaga markaas ku siyaasada ama iyaga markaasi wax ka maqli kara wararka ka imanaya dalka Peru ee Latin America waxay sheegeen in xabsiga laga sii daayay mid kamid ah madaxweynayaashii hore oo isagoo xabsi 15 sano ku xukunaa oo ku xiraa magaalada Lima xabsi weyn oo ku yaala waa madaxweynihii hore ee lagu magacaabi jiray Ollanta Humala oo isagu dalkaasi Peru xukumayay intii u dhaxaysay 2011 iyo 2016 kadib waa la soo eedeeyay xabsi ayaa la dhigay oo ku yaala bartamaha magaalada Lima taas oo loola jeedo inuu ku xabsi ahaa rag badan oo hogaamiyayaal ah ama madaxweynayaal oo iyagu xabsigaasi ku jiray qaarna hore ay u dhinteen qaarna iminka ay nool yihiin wali xabsiga ku jiraan maxkamadda dastuuriga ee dalkaasi Peru ee magaalada Lima ayaa go'aan gaartay 15kii bishii July ee la soo dhaafay oo tiri waanu ka noqonay waana la baabaashay dhammaan xabsigii 15 sano aha ee lagu xukumay madaxweynihii hore ee Humala oo ah madaxweynaha wadankaasi Peru waxa hore loogu eedeeyay inuu qaatay lacag gubba ah ama laaluush waxa loo yaqaan oo uu ka qaatay shirkad kamida shirkadaha dhinaca dhismaha ee dalka Brazil iyo waliba ee dawladda wadanka Venezuela isagoo u adeegsaday ololihiisii doorashada laakiinse arrimahaasi oo dhan waa uu beeniyay markii la xukumana kadib iminka maxkamadan ayaa soo deynaysa afada isaga u dhaxda oo lagu magacaabo Nadine ayaa iyada lafteeda kamid ahayd dadkii la xukumay laakiin iyadu ay dibad joog u ahayd wadanka Brazil oo ku yaala isla Latin America madaxweyne Humala waxa uu isu arkaa inuu yahay nin aan haba yaraatee wax dambi lahayn laakiin iminka la cafiyay iyadoo xabsigaasi uu yahay xabsi Bardillo lagu magacaabo oo inta badan ay ku jireen sida madaxweynihii ugu dambeeyay oo kale oo isaga la xiray ee lagu magacaabo Pedro Castillo rag kale ayaa ku jiray rag hore u dhintay ayaa ku jiray laakiin dhammaantood waxay ahaayeen rag ku xukunaa xabsiyo kala duwan iyadoo wadankaasi marka la fiiriyo Peru siyaasadiisu aanay deganeyn 10 sanadood 8 madaxweyne ayuu soo maray taas oo ka dhigan nin walba ama gabar walba marka ay joogto sanad iyo xoogaa in la eedeeyo oo qaarna lagu qasbo xukunka inay ka degaan qaarna baarlamaanku marka ay kalsoonidii kala noqdeen ee Congress-ka u codeeyo oo banaanka dhigay waxa ugu dambeysay haweeney la oran jiray Dina Boluarte oo iyadoo madaxweyne ka ah wadankaasi sanadkii tagay saqda dhexe ay shireen Congress-ku kadibna ay jagada ka tuureen laakiin doorashooyin ayaa la qabtay bishii Abriil ee ah bishii la soo dhaafay ee sanadkan waxaana doorashadaas aakhritaankii isku soo haray laba shakhsi oo garabka midig garabka bidix haweeney lagu magacaabo Keiko Fujimori iyo nin kale oo garabka bidixa oo isagana lagu magacaabo Robert Sanchez dib ayaa la isugu celiyay bishii June ee sanadkan ayaa si dirqiya waxa ku guuleysatay Keiko Fujimori oo uu dhalay madaxweyne hore Alberto Fujimori ee dalka Peru maalmo dhaweed ayaa la dhaariyay iyadoo markii dhaaratay shaaca ka qaaday Keiko Fujimori inay ku dadaali doonto inay mideen doonto guud ahaan siyaasadda kala duwan iyo dadka isdiidan ee wadankeeda Peru halka dagala socotaan waa channelkeena CID Pro TV oo aad warar iyo waraysiyo iyo waxa u soo joogaad kala socotaan iminkana ku soo dhawaada qadar xayisiis oo ku saabsan Mega Dentist oo xarun ilkaha lagu dabiibo laba xarumood oo Istanbul iyo xarun Ankara ah ee dalka Turkiga waxaan dhammaan bulshada la socodsiinaya in Mega Dentist oo ku taala magaalada Istanbul laba xarumood iyo meel ku taala dalka Turkiga qaar ahaan magaalada madaxda Ankara in lagu talagalay in lagu daaweeyo cudurrada kala duwan ee ku dhaca afka taasoo macnaheedu uu yahay in lagu daweynayo si kastoo xanuunkaagu u jiro waan qabaa waa aaminsanahay qof kasta oo Soomaaliyeed oo xanuunkaasi qaba inuu jeclaan lahaa in laga daweeyo sidaa darteed
dadka ka yimaada meelaha kala duwan sida Mareykanka iyo Yurub, Australia, New Zealand, Afrika iyo Carabta dhammaantood waxay diyaar u yihiin Mega Dentist dadkan ila taageena dhinaca bidixda dhaqaatiirta buluga iyo waliba dadka kalkaaliyaasha iyo maamulkuba inay si fiican oo qiimo leh u soo dhaweeyaan sida horeba ugu soo dhaweey jireen waan hubaa adigoo faraxsan inaad iman doontid adoo farxadaadu ay zaa'id tahay oo mahad celinay inaad laaban doontid meel kastoo aad joogtaan yaan la moogaan inaad la xiriirtaan Mega Dentist oo aad telefoonka shaashada ka arkaysaan anigoo cagta xaajiyana farxad bay ii tahay inaan idinla wadaago muuqaalkan iyo weliba inaan idiin sheego xaaladda wanaagsan ee halka ka jirta lagu dabiibayo ilkahaagu xanuun kastoo ay qabaan wararka ka imanaya dhulbiyood ku yaala dhinaca waqooyiga waddankaasi boqortooyada Morocco ee qaaradda Afrika oo lagu magacaabo dhulbiyoodkaasi Ceuta kana tirsan dalkaasi Spain ayaa waxa ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay iyadoo si aad ay u soo qamaameen oo ay u soo galeen dad muhaajiriin oo ka yimid dhinaca boqortooyada Morocco wararkii ugu dambeeyay waxa ay sheegeen in maalmo ka hor la arkay dad gaaraya ilaa 60,000 kuwaasi oo dhammaantood soo dabaashay oo yimid jasiiradda Ceuta laakiin aanay ku filan oo aanay qaadi kareenin madaxa isagu jasiiraddaasi shakhsiga lagu magacaabo Juan Jesus Vivas ayaa markiiba wuxuu codsi u soo diray dawladda magaalada Madrid ee dhexe ee dalka Spain si ay ugu soo gurmadaan arrinkan dadkan faraha badan ee ka soo qamaamay ama ka soo hayaamay dhinaca boqortooyada Morocco ra'iisul wasaaraha waddanka Spain Pedro Sanchez ayaa tagay isagoo aagaasi Ceuta kadibna la kulmay madaxda arkana xaaladda jirta sida ay tahay isagoo eedeynaya dadka lacagaha ka qaata ee sida sharci darrada ayagu dadka ku soo dhoofiya marka la fiiriyo wararku waxay sheegeen jimcihii shalay inay laabteen ilaa dad gaaraya 28,000 oo ruux oo ah dad ayagu hore uga yimid marka la fiiriyo waddanka boqortooyada Morocco laakiin u arkay inay ku habboon tahay inay iska laabtaan in dadkan ay si aad u soo qamaamaan oo ay ka yimaadaan boqortooyada Morocco waxay ka dambeysay toddobaadyo ka hor markii maxkamadda sare ee dalka Spain ay go'aamisay dadka iyagu soo hayaama ee badaha dhexdooda joogay dhibka mudanaya in haddii la qabto badaha dhexdooda aan la celin karin ee la sii daayo hadalkaas markay maqleen ayay intooda badan dadku isku soo biimeeyeen oo ay soo aadeen ee dhinaca biyaha waddanka Spain iyagoo nolosha bedelanaya laakiin Pedro Sanchez waxa uu yiri waa in dadka sharci darrada ku yimid dhammaantood ay ka laabtaan waddanka Spain marka hadaba la fiiriyo dhulbiyoodkaasi Ceuta waxa uu ka tirsanaan jiray dalka Spain laakiin way ka madax banaanaadeen iminka waxa uu raacsan yahay dhinaca Gibraltar lagu magacaabo ee dawladda Britishku ay markaasi iyadoo muddaba ay xukumaysay waxa la filayaa dad badani inay isu arkaan iyagu dib inay u laabtaan iyadoo qaar ka tirsan dadkaasi oo warbaahinta la hadlayay ay sheegeen sidii aan moodayna arrintu maaha dhib badan ayaa jira iminkaba waxaa dhintay ilaa 60 ruux oo kamid ah dadkii soo dabaashay iyadoo taasina ay culays tahay inay markaa iska laabtaan ayaa loo arkay sida ay tahay warbixinta ka imanaysa marka la fiiriyo guud ahaanba dhulka Ceuta oo ah dhulbiyoodka dhinaca waqooyiga qaaradda Afrika ku yaala ee u dhaxeeya Morocco iyo dhulweynaha Spain dawladda Talyaaniga ayaa markii aragtay dadka soo qamaamay faraha badan ee dhinacan yimid ee Spain waxay soo saartay war degdeg oo ku saabsan heshiis u dhaxeeyay wadamada reer Yurub ee dhinaca xuduudaha oo ah fiisa ama dalku gal ay ku magacaabeen Schengen inay si ku meel gaar ah u joojiyeen ayagoo u arka Talyaanigu inay dhici karto dadkan faraha badan ee ku soo qamaamay waddankaasi Spain inay iyaga u soo talaabi karaan ama bay u soo gudbi karaan qodobka ugu dambeeya wararkeena iyo maanta oo Sabtiya waa qodob ku saabsan marka la fiiriyo xiriirka kubadda cagta ee FIFA oo maalmihii ugu dambeeyaba barnaamij cusub la yimid laakiin si aad looga biyadiiday madaxweynaha ama gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee FIFA Gianni Infantino ayaa daacadii ugu dambeeyay ka dhawaajiyay in laga laabtay go'aankii ahaa maalgelinta ku saabsan arrinta dhinaca FIFA oo la sheegay qolyo lacag leeyahay inay maalgelin sameynayaan kadibna markaas dadku ay faa'iidayaan arrintaasi waxay noqotay madaxweynuhu mid ku riday guud ahaan xiriirada kala duwan ee kubadda cagta oo ugu horeeyo xiriirka kubadda cagta ee reer Yurub ee UEFA iyo madaxdii hore iyo dad badan oo ehel u ah xiriirka kubadda cagta ee FIFA ee World Cup-ka Infantino waxa uu yiri waa laga laabtay wax walbaana sidoodii ay ahaanayaan war xumow lagu waa arrintaasi markiiba waxay noqotay mid si aad loo soo dhaweeyo laakiin loo arkay culays xoog leh oo xiriirka kubadda cagta ee FIFA ku yimid maadaama taariikhiyan uu ahaa xiriir adduunka u dhaxeeya tan iyo 1930 laakiin talaabadan cusub ay tahay mid lagu baraarugay markii uu dhamaaday koobkii kubadda cagta ee dunida ee 2026 ee lagu martigeliyay Mareykanka, Canada iyo Mexico
waxaa hadlay qaar ka tirsan madaxda xiriirada kala duwan gudoomiyaha ama madaxweynaha xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Asia Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa ayaa waxa uu yiri waa soo dhaweynaynaa talaabada Infantino oo uga laabtay go'aankiisii ahaa in qolyo lacag leeyahay oo Mareykan ah oo kamid yahay ninka lagu magacaabo Joshua Kushner la siiyo ilaa 20 bilyan inay dhiibaan oo lagu sheegay inay kabayaan lacago isla markaasina waxyaabaha dadka loogu maalgeliyo ama looga qayb geliyo inay lacag faa'iidaan iyada lafteedana meesha laga saaray xiriirka kubadda cagta ee reer Yurub FIFA ayaa isagu hore u qaadacay iyo xiriiro badan oo ka tirsan sida Latin America oo kale laakiin iminka waxay u muuqataa haddii go'aankii laga laabtay inay wax walba caadi ku soo laaban karaan rag sare oo la shaqeynaya marka la fiiriyo Infantino ee fadhigoodu yahay Zurich ee Switzerland waa xiriirka kubadda cagta FIFA xaruntooda ayaa iyaga laftooda jagada baneeyay markii warkan maqleen oo Infantino uu watay waxa kamida nin la taliye sare oo lagu magacaabo Carlos oo isagu shaqada ka tagay Infantino oo ahaa la taliye nin kale oo dhinaca howlgallada FIFA u qaabilsana oo ahaa ninka lagu magacaabo Kevin Lamor ayaa isaguna ka codsaday in jagada inuu baneeyo loo sheego si uu jagada uga tago madaxweyne ku-xigeenyaasha FIFA iyo guddiga sare ayaa iyaga laftoodu ka biyadiiday go'aanka Infantino oo ahaa in lacag leey ay soo farageliyaan xiriirka kubadda cagta ee FIFA iyo World Cup-ka wixii warar ay ku soo kordha guud ahaanba FIFA bulshada u dhaxaysa wararkayaga dambe biidnillaahi kariim intaas ayaan ku soo qatabaynaa wararkeena caalamka 1 bisha Agost 2026 iyo Sabtida channelkeena CID Pro TV subscribe haddii aanu ku saarayn si aad u heshid xogta 24 saac ugu dambeysay ee Maxamed Axmed Xaaji Maxamed Cagmadhige iyo bahda channelkeena CID Pro TV wararka wareysiyada waxaan u soo joogay tan iyo kula dambe كلمة تجينا بإذن الله كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.